كنيل وحنا بريو هاي لنا سلام فلو كان كيديو كبار شعبي إذن هوينا إذن هوينا إذن هريا مقتايل وهل يدا لهبيه لسوف يوم عش أفريقيا يقلوي مقتايل وهل يدا لهبيه لسوف يوم عش أفريقيا يقلوي مقتايل موكتاي ودمستو مسوهر قلان عرب مقبتو هدف كوديو عشراتيرو مهرمان موكتاي ودمستو مسوهر قلان عرب مقبتو هدف كوديو عشراتيرو مهرمان موكتاي مقتاهل ولا على سورين اشيز كوغي انا بلالي هنروي مقتاهل مقتاهل ولا على سورين اشيز كوغي انا بلالي موكتاي نعم عليسو له بيي على قودي كورتغيان موكتاي taliyaha qaybta taliyaha dugsiga macallimiinta iyo saraakiisha xoogga dalka Soomaaliyeed meesha taagan iyo baahda saxaafadda ama raadiyaha ciidamada qalabka sida dhammaan saraakiisha meesha taagan iyo alif leeydi iyo dibleydaba waxaan idinku salaama salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaanka bacdi waxaan maanta soo gaarnay xeradan ku taala degmada Gurceel ee la yiraahdo Harqaboobe oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed lagu tababaro oo qaybta 22aad ka tirsan waxaan keenay ciidan in muddo ah xerada lama galay lagu tababaray oo xoogga dalka Soomaaliyeed ah oo la soo ciidameeyay qaramaysan ciidankaas oo hadii Ilaahay idmo iyo ciidanka inta jooga ay yihiin aan rajaynayno kuwii cadawga dalka ka saari lahay aad iyo aad aan soo dhaweynta taliyaha qaybta iyo taliyaha dugsiga iyo saraakiisha kale ay noo soo dhaweeyeen aan uga mahad celinaynaa waxaan rajaynaynaa in xeradaanu noqoto xeradii Soomaaliya ciidankeedii xoogga dalka Soomaaliyeed oo aad iyo aad u mahadi lahay Soomaaliyuna mahadi lahayd oo ka soo bixi lahay ciidanka ugu wanaagsan waxaan idinku wareejiyay maanta taliyaha dugsiga aan ku wareejiyay ciidan dhan 350 iyo 1 qof 350 iyo 1 qof ciidankaas oo ka mid noqonaya ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee ka howlgalaya gobolada dhexe yaa daraadeed aad iyo aad aan taliyaha qaybta ugu mahad celinaya asaga naftigiisu juhdi badan oo nagu la bixiyay intii ka soo qayb qaadatay oo ama saraakiil ama macallimiin oo ka soo saartay tababarkana aad ugu mahad celina walaalkay saaxiibkay Maxamed Cali Abikar oo taliyaha dugsiga ahaana waa ku wareejiyay saacada laga bilaabo asaa ciidankaas laga rabaa xoogga dalka Soomaaliyeed soo ugu talina asaa yaqaan laakiin ciidankaas asiga mas'uuliyadiisa la wareegay
ilaahay uu marqaati ka ahaw taliyaha qaybtuna marqaati ha ka ahaado annaga beledweyne xerada lama galaay iyo xerada Harqaboobe isuu ka mid waa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed xero kasto xeradan uu ka baxa taas lama galaayo gala lama galaayo ka soo baxa intuu galay hiil weyn oo gala Muqdisho taga meel kasto taga Galkacyo tagaya